wasiirka wasaaradda xiriirka golayaasha iyo dastuurka Soomaaliland Maxamed Xaaji Aadan Cilmi oo telefishinka bulsho wareysi ku siinayay xafiiskiisa magaalada Hargeysa ayaa ka hadal ka soo yeedhay hogaamiyaha Khaatumo Mudan Cali Khaliif Galeydh. Wasiir Maxamed Xaaji Aadan Cilmi ayaa sheegay in Soomaaliland xukuumadda uu garwadeenka ka yahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ay fulin doonto guud ahaan heshiisyadii lala galay cid kasta. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. Waxa weeyaan waxa Ilaahay mahadiya in maxaa lahaay runtii heshiis la galay sida aduguba ka warantay wax walba waxay leeyihiin meel ay ka bilowdaan iyo meel ay ku dhamaadaan xukuumadda uu hogaaminayo Muuse Biixi Cabdi waxay diyaar u tahay inay dhamaystirto dhamaanba waxa weeyaan wax kasta oo qarankani oo waxa weeyaan uu ku xana qaadayo ku gaaraya halkiisa Cali Khaliifna wuxuu ka mid yahay odayaasha ama mas'uuliyiinta waxa weeyaan Soomaaliland wuxuu ka mid yahay mas'uuliyiinta waxa weeyaan farqutiriska ee aqoon-yahanka ee qarankani leeyahay wuxuu ka mid yahay raggii ka soo taliyay ee Burco lagu aasaasay la soo noqoshada qarannimada Soomaaliland ka taliyay wuxuu ka mid yahay guurtidii iyo waxgaradkii iyo aqoon-yahankii Boorame waxa weeyaan ka qayb galay waxa weeyaan dadku waa kala taban karaa tabasho kadibna wuxuu ka mid yahay hogaamiyihii go'aansaday mar saddexaad inuu halka uu kaga beegan yahay dhiso qarannimada Soomaaliland innagana waxa weeyaan lagu waajiba oo xukuumaddu ay diyaar u tahay kuna hawlan tahay in iyaduna inta ku beegan ay insha Allah dhamaystirto. Maxamed Xaaji Aadan Cilmi wasiirka wasaaradda xiriirka golayaasha iyo dastuurka Soomaaliland sidoo kale waxa uu ka warbixiyay waxyaabo uu qabsoomay muddadii uu joogay wasaaraddaas waxaana uu baaq u diray guud ahaan shacabweynaha reer Soomaaliland. Xilka culus annagoo kaashanayna aqoon-yahanka Soomaaliland sharci yaqaanka Soomaaliland haldoorka Soomaaliland iyo raggii soo hal abuuray waayo dastuurkeenu sida ogtihiin wuxuu ka soo bilaabmay أحد قرامات بوك صوب العظمي دولنا الدستور بيسبدلي وكأينو بعد الله مرك إلهي لقى الرابو أينو إسلام هاي قرن كني نبت جليدة ديمقراطية ده دولة نمدة حزبية ده إيه هنا شد الدور شوين كحلاشة وحويان ليسكو بدلي أصل بويه sida daraadeed in la dhawro la ilaaliyo la horumariyo uu mudan yahay waxaanu ka bilownay wasaaradda maadaama ay tahay wasaarad dastuurkuna uu ku soo biiray inaanu u sameeyno istiraatiijiyad 4 sano ee soo socda taasoo la jaan qaadaysa waxa weeyaan NDP2ga aynu xukuumaddu samaysay 5 sanadood ee qorshaha qaranku leeyahay 5 sanadood oo hal sano markaa anaga maxaa lahaay naga tagay inaanu la jaan qaadno sida daraadeed waxa Ilaahay mahadiya inaanu iminka ku guuleysanay inay noo dhameystiran tahay qorshihii 5 sanadood intii xisbiga kulmiye talada hayay sida ka warhaysaanba wasaaradaha aad iyo aad baa loo dhisay wasaaradani markaa waxay ku jirtay ووزارتها إن شاء الله يدنا سنتكن هي سنة كصوص هذا إن شاء الله دسمياش عصب وجوري دونتا وحنا فهمتي حبايني وزارتنا أيام كأركسانية مقال كذا وأنا مددي كهولانين وحنا كلا محل هاي حرير يوضع الشقين لله نحسا أكتين با قلايا شقرنكا كوميشنكا يدمان بوزارتها يهيدها قرنكا dhammaan ba inta xeerarka mas'uulka ka iyo inta xeerarka abuurta waxa kale madaxweynuhu sameeyay oo aanu waxa weeyaan wada shaqayn la leenahay gudida shuruucda oo iyaduna waxa weeyaan labadii toddobaadba shirar isugu timaada waxaanu dib u eegnay shuruucdeena oo runtii kala duwan xeerarka inuu yaala kuwa ay tahay maxaa lahaay in priority la hormariyo iyo kuwa ay tahay in la hal abuuro iyo kuwa ay tahay maxaa dhahay in la qeexo
annagu runtii iyada oo ay mas'uul inooga yihiin golayaasha xeer dejintu annaguna aanu runtii nahay gacanta labaad ka saacidaysa sidii xeerarkeenu iyo shuruucdeenu ay u meel mar lahayd arrimahaasi waa arrimo runtii inoo qabsoomay waxaana jira qorshayaal runtii aynu leenahay oo ka sii ballaadhan sidaas oo aanu ku tala jirro insha allah mustaqbalka dhow inay maxaan dhahay bulshaweynta Somaliland aanu u soo bandhigno waxa kale waxaan leeyahay Ramadaan Kariim ilaahay subhanahu wa ta'ala haynaga aqbalo bisha Ramadaan qiyaamkeeda iyo cibaadadeeda ilaahay haynaga aqbalo sanadka soo socdana ilaahay haynagu gaarsiiyo nabad qab iyo caafimaad iyo dambi dhaaf iyo horumar iyo nabadgelyo waxaanu nahay qaran mid ah oo ehel ah oo walaalo ah waa inaynu ilaashano qarannimadeena qardofooyinka dhacay waa inaynu ka bogsano qabyaaladu waa aafa qaran waa aafada qaran ee runtii waxyeeli karta jiritaanka ay ummadda leedahay nabigeena kaleey salaatu wasalaam waa ka digay wuxuu yiri dacuuha innaha mumtina waxaan leeyahay walaalayaal qabyaalada iyo maxaan rahay aan ka guurno aan mid ahaano aan ka bogsano aan ka heshiino aan horumar u jeesano aan aqoonteena kordhino aan wax soo saarkeena kordhino waxaanu ahaan karaa qaran isagoo aan la aqoonsan is aqoonsaday oo isku filan baynu ahaan karaa marka la eego ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxa uu inagu manaystay khayraadka ah inaynu khayraadkeena u jeesano taladeenu mid ahaano dawladeena iyo qarannimadeena aynu dhowranno oo ilaashano baynu u baahannahay waxaanu u baahannahay inaynu deris wanaag iyo walaalnimo kula noolaano cid kasta oo aynu derisnahay inaynu wanaag iyo walaaltinimo kula noolaano qarannimadeena difaacno cid kasta oo qarannimadeena wax yeelisana aynu difaacno oo meel uga soo wada jeedno Luqmaan Maxamed Faarax iyo Umar Cali Ducaale Bulsha TV Hargeysa